بسم الله السلام عليكم رمضان وناكسن وبرامج كيني بدل نلوش هذا هروق سو شيكيسن حلقوين بدن وعن رجينا إنه ليش نح بدل كسو كرديين أيوة دنبيسي إن عن كذا شيكيسن لكلسون إذا نفط يحو كسابسن وعن رجينا يا إنت لابوين كأدرى علينا إنه ليش نكسو بيريان واحتر أفر بدن عاد نقون دونتان شخصيات productivity له noloshana macno weyn ka soo sameeya maanta waxaan rabnaa inaan ka wada sheekeysano xalqo kale oo cusub aan rajeynayo inay muhiim tahay waliba si dhabay muhiim u tahay si gaar ah ay xiisi kalgacayl igu haysaa inaan fariintaas ku soo gudbiyo ama xalqadan ku soo gudbiyo sababta waxa ka sheekeynaysa wax muhiim ah inaad ogaato inay tahay wax agtaada qiimo weyn ka sameynayo waxay tahay sidee noloshaada ama shakhsiyadaada ama qofnimadaada uga dhigi kartaa wax gaar ah ama wax unique oo dadku ay xiiseeyaan inay helaan sida caadiga nolosha marka fiiriso dadku waa laba qaybood kuwana waa dad noloshooda iska caadi ah oo dadku macna iyo qiimo iyo value uma hayaan oo nolosha ay noolyihiin waa tu iska caadi iska noolaansho ah balse kuwa qaar waxay noolyihiin nolol iyaga gaar ahaansho ay u sameysteen oo la yiraahdo noloshaas waa nolol mudan in lagu daydo markasta oo arkayso qof in lagu dayanayo ama la xiiseynayo in tusaale laga dhigto waa qof wixiis u gaar yihiin sababtoo ah wax walba ma wax lagu daydo balse wixii wanaagsan oo gaar ah ayaa wax lagu daydo si aad adiga uga dhigto noloshaada mid gaar ah oo unique ah oo dadku dhan ay jecel yihiin ay xiiseynayaan inay noolaadaan noloshaada waxaa muhiim ah dhowr qaybood nolosha inaad gaar yeesho oo aad ka dhigto wax gaar ah wax walba marka gaar ka dhigaysan waxay u baahan yihiin inaad la timaado dhaqamo iyo shaqooyin iyo hawlo gaar ah si aad uga dhigto noloshaada wax gaar ah waxa ugu horeeya laga rabo in aad gaar ka dhigto oo gaar yeesho oo wax unique ah oo aysan dadka dhan heli karin ka dhigto waxay tahay personality-gaaga shakhsiyadaada dadkoo dhan waxay leeyihiin nolol iyo shakhsiyadu way leeyihiin balse waxa mudan in macnaha u samayso oo qiimeyso oo horumariso xitaa shakhsiyadaada dhowrsanaantii akhlaaqdu ma aha kaliya wax jaamacad iskuul looga soo baxo balse waa wax u baahan barasho kale haddii aad rabto shakhsiyadaadu inay noqoto mid gaar ah oo xaqiiqi ah xilliga la joogo waxyaabaha astaanta ku noqon kara waxa ka dhowrsanaan waxa laba ka akhlaaq dabeecad haddii inta aad la timaado ee aad naftaada iyo shakhsiyadaada ku dabaqdo waxaad yeelanaysaa shakhsiyad gaar ah dadku waxay kugu tilmaamayaan shakhsi dhowrsan shakhsi dabeecad leh shakhsi akhlaaq leh shakhsi aan degdeg badnayn shakhsi aan wax walba ku fududaanaynin ka fikiraayo marka waa inaad shakhsiyadaada gaar yeeshaa oo aadan noqonin dad aysan ku saameynin duruufaha iyo xaaladaha gaarka ka ah noloshaada ku hareeraysan ee aad noqoto qof isaga saameeya duruufaha haddii deegaanka uu ka jiro dhaqamo aan wanaagsanayn adiga bedel haddii deegaanka uu ka jiro in la boonbooninayo la dhiirigelinayo like akhlaaq darrada dhowrsanaan la'aanta wax noocaas adiga bedel adiga astaan iyo sumad u noqo dhowrsanaantuna waa wax u baahan in shakhsiyadaada qayb uga dhigto si aad adiga shakhsiyadaada uga dhigto mid gaar ah wax labaad loo baahan yahay in aad gaar yeesho waxay tahay had fikirkaaga sida wax u aragto waxa la sida caadiga qofku waxa uu yahay sida uu arko dunida haddii dunidan aad u aragto ama noloshan aad u aragto ama duruufahan noloshaada ku dhex jira aad u aragto wax xun oo aanan fiicnayn oo caqabado badan oo challenge badan way tahay haddaa u aragteen inay wanaagsan tahay oo nicmad dhex taalo fursad dhex taalan iyaduna way tahay balse number 1 horta inaad ogaato attitude-kaaga mid noocaya marka ogaato mid dadka la jaan qaadayo oo duruufaha iyo dadka waxay sheegayaan ahmiya mise waxa adiga samaysato attitude-kaaga ma waxa adiga qaabaysatay inaad taas weydiiso haddii aad fikirkaaga uu yahay in wax walbo like dhanka xun ah ka arkayso bedel hadday dadku ka arkayaan in ay guusha iyo horsocodka isbedelku ay tahay in maxay ahayd lacag la bixi ama qabiil lagu helayo wax noocaas adiga bedel markaad dadasho shaqeey markaa shaqeyso guul aad gaartana iyaga aad noqoto tusaale dad ay ku daydaan ay xiiseeyaan la sheekaysigaaga iyo saaxiibtinimadaada markuu wax labaad la rabo waxa attitude-kaaga inaad bedesho attitude-kaaga marka aad ka dhigto wax gaar ah waxaad noqonaysaa qof noloshiisa ay tahay gaar
ma noqonaysid qof wax walba like la soo sheego dhankay dadka ka arkeen kama arkaysid balse waxa ka arkaysa angle kaleeto marka attitude-kaaga waa inaad midda labaad aad ka dhigtaa wax gaar ah wax saddexaad oo la rabo inaad gaar ka dhigto waxay tahay hobbieskaaga waxa xiisayso waxa xiisayso like waa shaqo aad jeceshahay qabashadeeda aad ku raaxaysanayso aad ku dareemayso farxad iyo jacayl iyo deganaan marka ma waxaad tahay inaad ogaato muhiima ma waxaad tahay waxa dadku ay jecel yihiin ay xiiseeyaan qof xiiseeya mise waxaad tahay qof wax ay naftiisu jeceshaan xiiseeya waxaan jeclahay inaan dadka la hadlo waxa xiiseeyan jeclahay waa waxaan ku gaarka ahay oo shakhsiyadeeda nolosheeda aan ka dhex aqaano adigana markaan abaarto laakiin ku soo degdegin qofkan waxaasuu jecel yahay jeclow may laakiin ku degdeg maxay naftaada jeceshahay maxay buunbuunaysaa maxay xiisi kalgacal ku dareenta markaa ogaato let's do it ida samee qabo ku dhaqaa macnaa dadka qaar ceebaha iyo qaladaadka ay sameeyaan waxay tahay qof wanaagsan bay arkayaan wuxuu xiiseeyo like book akhris inuu xiiseeyo dadka inuu la hadlo inuu xiiseeyo inuu dad tababaro inuu xiiseeyo ganacsi inuu galo markaas bay waxay ku qaldamaan qofkaas wuxuu doortaa mid aan ku sheego kalluunka si kastoo iskugu dayo inuu dibadda u soo baxo arsaaqdiisa looguma qorin dibadda waxa lagu qoraa badda dhexdeeda inuu kaco adigana si kastoo iskugu daydo qofka kale wuxuu jecel yahay inaad jeclaato laguma abuurin waxaas inaad jeclaato waxa lagu abuuray inaad hobbigaaga jeclaato marka inaad hobbigaaga xiisi kalgacal u qaadaa aadna isaga gaar ka dhigtaa haddii hobbigaaga aad gaar ka dhigto waxaad yeelanaysaa shakhsiyad nolol gaar ah oo dadku dhaleexaysan waxa ugu dambeeya la rabo inaad gaar ka dhigto si noloshaada u noqoto wax gaar ah waa ujeedooyinkaaga gooliska aad leedahay yaysan noqonin wax dad kaleeta ah kasoo dhex aragtay laakiin ha noqdo waxa noloshaada kasoo dhex aragtay goolkaaga waa inaad number one isweydiisaa goolkaaga waa maxay waxaas just ha noqdaan wax noloshaada kasoo dhexbaxay dadku hadday kaa sugayaan inaad ujeed ka dhigato inaad guursato inaad lacag hesho inaad madaxweyne noqoto waxaasoo dhan waa xuquuq aad leedahay in aad hesho xuquuq ha ka dhiganin ujeed marka waa inaad ujeed ka dhigataa wax weyn oo noloshaada wayna kusoo biirnaa wixii lagu abuuro inaad fulisaa safiirnimadii lagu keenay dunidan inaad samaysaa haddii intaas aad ujeed ka dhigato oo dadku meesha ka filanayeen inaad amni caafimaad wax noocaas aad ka fikirto ujeed aad ka dhigato aad wax kaloo ka weyn oo nolosha la rabo inaad ka xaqiijiso aad ka dhigato ujeed dee waa gaar dadku way kula yaabi doonaan waxay dhihi doonaan maxaa ku fikiraysaa waxa suuragal maaha marka wax ugu dambeeya rabo inaan ku dhaho marka aad isku daydo shakhsiyadaada aad fikirkaaga iyo waxa aad jeceshahay ujeedkaaga inaad gaar ka dhigto dadku idil way kula yaabi doonaan sababtoo ah waxaysan arkin ayaad samaynaysaa marka aad isku dayayso waxaysan arkin ama maqlin in aad samayso samaynteeda caqabad ayaad kala kulmaysaa balse markaad samayso waxaad noqonaysaa xadig dadka dhan ay jecel yihiin mahadsanidin halka ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka bedel noloshaada maanta aan uga wada hadlaynay sida aan gaar uga dhigi karno nolosheena waxaan rajeynaynaa wax badan ka faa'iideen haddii ay jirto fariin su-aal tale ay la wadaagayso waxay ula soo wadaagi kartaa gmail-ka shashada ka muuqda anigu waa cabdifataax qaasim cali ramadaan wanaagsan